مسؤولين حزبك wadaniga gobolka Sanaag ayaa shir jaraa'id oo gelinka dambe maanta ku qabteen xaruntooda dhexe magaalada Ceerigaabo waxay xisbiga talada hayay kulmiye ku eedeeyeen inuu bilaabay olole siyaasadeed oo sharci darro ah isla markaana jabiyay go'aano sida ay sheegeen golaha guurtiga Soomaaliland hore uga soo saaray xilliga ay bannaan tahay ololeynta siyaasadeed ee axsaabta qaranku iyo waliba qodobo kale oo ay tilmaameen waxayna mas'uuliyiintani halkaasi ka sheegeen in iyaguna dhinacooda bilaabayaan ololahooda iyo muujinta xuduudda xisbigooda ku leeyahay bulshada dhexdeeda waxaana shirkaasi jaraa'id ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daadey xisbiga kulmiye wuxuu ka bilaabay gobolka Sanaag campaign mamnuuca waqtigan xaadirka aan jirin iyadoo golaha guurtiga qodob hore u saaray ayay bilaabeen kulmiye inay ka bilaabaan ololihii doorashada gobolka Sanaag sidaa darteed hadana mas'uuliyiinta ugu sarreeyay gobolka Sanaag gudoomiyihii garabyadii gudoomiyihii degmada dhamaantayo waxaanu annana soo gudbinaynaa inaanu qaadanayno inuu qodobkaas jabiyo xisbiga kulmiye annaguna aanu bilaabi doono ololihii degmooyinka iyo gobolada gobolka Sanaagna ka bilaabi doono soona bandhigi doono xuduudii aanu ku lahayn gobolka Sanaag taas oo annagoo tixraacayna dawladda iyo xisbiga xaakimka ah oo jabiyay qodob dastuuriya mar haddii sharciga lagu tumanayana aanu cid gaara sharcigu qabanayn taa ayaanu horta bulshada Soomaaliland dhamaantood meel kasta joogan u sheegnaa taas waa qodob gudoomiyaha wadaniga gobolka Sanaag isagoo si gaar ah ula hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixina wuxuu yiri qodobka labaad campaign-ka ragga wada gudoomiyayaasha xisbiga kulmiye halka waxa ku yaala gobolka Sanaag hadal hore kaaga baxay cadeynteeduna kuna suntan 6 bishii 9 2012 adigoo booraba khudbad kaga akhriyaya inaad tiri gobolka Sanaag dadka ku nool waa dad geela dhaca oo tuuga oo waxba baran hadalkaas gobolka Sanaag waa ku yaala waraaqdaasana cadeynteedina waa taa miidiyahan u soo gudbinayna Muuse Biixi campaign-ka uu gobolka Sanaag maanta oo sharci darrada uu ka wado waxaanu leenahay tuugtii geela dhici jirtay iyo dadkii ay dhaleen baa kaaga soo horeeyay gobolka Sanaag waa kugu soo dhaweyn doonaan taana waa kugu bushaareyna waa waxaanu ku sii haynay waa kaydka hore u sii dhigatay waxay iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin isugu jirta maamulka xisbigan iyo garabada dhalinyarada iyo haweenka ee gobolka Sanaag wixii lagu heshiiyay ee uu golaha guurtidu go'aamadoodii sagaalka ku jirtay ilaa xilliga la sheego ololuhu uu bilaabmayo inaantaa ka la qaadi karin laakiin waxa maanta noo cadaatay inaanay xeerkaasi shaqaynayn inuu jabay inaanay hadhow cid qaban karin wadanina waxaan ugu baaqaynaa meel kasta uu joogo inuu campaign-kiisa bilaabo xilliga ugu dhaqsaha badan doorashadii waa 26 Juun in laga diyaar garoobo saasaanu cadeynaa waxa la yaabo ah in maanta xisbigii kulmiye uu gobolka Sanaag uu campaign ka bilaabay annaga kareer ahaan ay maanta noo yimaadeen oo yiraahdeen beesha gabooye waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb qaadato campaign-ka lagu soo dhaweynayo Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay maanta xisbiga kulmiye iyo mas'uuliyiinta gobolka u jooga beesha gabooye waa beeshii aad ilowdeen waa beeshii inaga tashatay waxaan jeclahay inaan dadka carqalad la gelin in nabadgelyada iyo xisnoonida dalka laga shaqeeyo annaguna haddii aan nahay dhalinyarada xisbiga wadaniga iyo mas'uuliyiinta xisbiga wadaniga gobolka Sanaag waxaanu anana qaadi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo talaabo degdeg ah oo aan awoodayada iyo xuduudayada aan ku soo bandhigayno haddii Ilaahay yiraahdo Cabdullaahi Xasan Darwiish shabakada caalamiga Wadweyne News magaalada Ceerigaabo